الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإذن سلام مركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تليها قوتدا 14 أكتوبر iyo tali abaanduulaha guutada iyo saraakiisha sargaal xigeenada iyo askarta ka tirsan guutada dhammaan markale salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imaatinkeena maanta aan halkaan imaanay anagoo ku hadlaya garsoorka magaca garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu la xiriiraa ukuurgalka aan u kuurgalayno habdhaqanka ay ciidanku u shaqaynayaan ma yahay mid waafaqsan sharciga oo wanaagsan mise waa mid aan waafaqsanayn sharciga xeradan quruxda badan ee aan soo booqanay booqashadeena waxay la xiriirtaa arinta noocaas ah waxaad ogtihiin in qofka ciidanka ah oo noqdaa qof wanaagsan oo si hufan oo qiimo badan shaqadiisa u gudanayo waxay ka imaanaysaa hal arin oo ah in uu yaqaana uu og yahay waajibka lagu leeyahay oo asaga saaran uu og yahay kana uusan gudbin waajibkaas saaran qofka ciidanka ah sargaal iyo askari intaba wuxuu ka unkamaa oo ka imaadaa saldhigna u ah hal arin oo ah amar qaadasho qofka ciidanka ah waxaa la rabaa inuu amar qaataa inuu dhagan nuglaadaa la rabaa qofka ciidanka ah waxaa la rabaa inay ka muuqataa hoggaansanaan inay ka muuqataa la rabaa shaygaas kala dambaynta la leeyahay oo amar qaadashada la xidhiiro waa awoodda keliya oo ciidan yeelan karo awooddaas markii la helaane waa tan lagu ilaali karo sharafta dalka iyo dadka lagu ilaali karo awoodda aan ka hadlayno iyo xoogga aan ka hadlayno oo ay ciidamadu leeyihiin waxaa lagu gaari karaa keliya hal arin oo ah qof walba oo ciidan ah oo halkan fadhiyo awoodda ku jirto oo loo geeyey awoodda taliyihiisa markii awoodaha qof kasta iyo tabarta uu leeyahay ee ku jirto loo geeyey tabarta taliyaha uu leeyahay waxaa imaanaysa oo la gaaraa midnimada shaqada la gaaraa istaageerida la gaaraa inay istaageeraan ciidanka dhexdiisa ay istaageeraan la gaaraa waxaa la gaaraa hoggaansanaan iyo hoggaan wanaagsanaa la gaaraa ismaqala la gaaraa intaas markii la gaarane waxaa imaanayo oo la gaaraa iyadana in la ilaaliyo sharafta dalka in la ilaaliyo madax bannaanida dalka in la ilaaliyo sharciyada dalkan u yaallo in la ilaaliyo waana taas waajibaadka asaasiga ah oo saaran qofka ciidanka ah sargaal iyo askari qofku rab ha noqdee waa waajibaadka asaasiga ah oo saaran kaas waay inuu mataqaanaa u diyaar garoobaa inuu ilaaliyo sharafta dalkiisa madax bannaanadiisa iyo sharciyada dalkan u yaalla sidii qof walba oo dalkan ka soo jeedo u dhasho ku dhaqan in ay si siman ugu dhaqmaan cidda ilaali lahayd idinka waay si loo gaaro markii muhiimadda ay leedahay in kala la helaa kala dambeyn ciidan waxay ka imaanaysaa halka arintaas ay ka imaanaysaa oo waxaa ku xiran in la helaa sharaf iyo madax bannaan in la helaa ku xiran si markii loo gaaraa kala dambeyntaasi waxaa lagama maarmaan ah in laga ilaaliyaa ciidanka dhexdooda wax walba oo kala dhantaali kara waxaa lagama maarmaan ah in laga ilaaliyaa wax walba oo keeni kara kalsooni la'aan keeni kara oo ay ugu horeyso askarigu inuusan ahayn qof hoggaansan oo amar diidada wax la leeyahay waa in laga fogaadaa amar diidada waxaa ka sii xun oo aad ay u fool xun tahay arrintu marka qofkii ciidanka ahay oo la rabay inuu amniga dalkan sugo oo ku hadaaqo waxyaabo aan loo baahnayn oo ay kow ka tahay waxyaabaha dalkan ragaadiyey oo u diiday dalkaani qofku muhiimka ahay in la dhaho kan aan muhiim noo aha noo shaqaynaya la dhaho oo ah qabyaaladda waa inaad ka fogaataan qabyaaladda aad baan uga xunnahay runtii wixii ka dhacay xeradan maalin horeeto oo la xiriiray in askar ama qayb ka mid ah saaxiibadiina ay ku dhawaaqeen ereyo aanan munaasab u ahayn ciidannimada shaqada ciidanka waanad aragteen runtii cawaaqibka iyo tilaabtii laga qaaday oo dad idinka mid ah maanta ay ciidannimadii loogu ruqseeyey oo bannaanka ku joogaan ay dibjir ku yihiin
qaarna ay xabsi ku jiraanba ay u sugayaan in la ciqaabo sugayaan. arrinta qabyaaladda waa arrin aad u foolxun, waa in laga fogaadaa. ciidannimada shaqo kuma leh waxa la yidhaahdo qabyaaladda. waxaan rabnaa xeradaani iyo guutadaani inay naqdaan guutadii looga dayan lahay aadaabta iyo disibiliinka. xeradaanna ay noqotaa mid loo soo doonto asluub wanaagga iyo disibiliinka. askariga ka baxaana oo askariga ku jira xeradaanne oo ka tilmaaman yahay askarta qaybaheeda kala duwan. waxaan rabnaa inay hoggaan u noqotaan ciidamada. markii laydin soo qoraayo oo aad imaanayseen madaxda dawladdu iyo madaxda qarankuba way sheegeen sida qiimaha badan leh aad ugu soo tadawucdeen inaad ciidanka aad ku biirtaan. mabda'i koowaad marka inuu dhumaa lama rabo, oo waxaa la rabaa inuu sidiisa ahaadaa la rabaa. intaa markaan uga gudbo mataqaanaa arrintii hore u dhacday, waxaa la rabaa oo meesha ka maqan oo keenaya waxyaabahaasi kala dambeyn la'aanta iyo qofka inuu waxaan loo baahnayn ku hadlaa. hal arrin oo ah qofka ciidanka ah waxaa la rabaa inuu leeyahay hami, wuxuu hiigsanaya inay jirtaa la rabaa, hami sare inuu jiraa la rabaa. waxaa jiro oraah ciidanka dhexdeeda caanka ah oo la yidhaahdo askariga aan ku haminaynin oo aanan doonaynin inuu naqdaa janan ou naqdaa waa askari daciifa. waa hubaal qof halkan fadhiya maanta oo ogolaanaya in lagu tilmaamo qof daciifa inuu ku jirin meeshaan uusan fadhinin, inuusan jirin halkaan uuna fadhinin qof in la ogolaanayo in lagu tilmaamo inuu yahay daciif. sababtoo ah dacfigu wuxuu khatar ku yahay oo kuu diidaa inaad hormartaaho kuu diida. daciifnimadu waxay kuu diidee in aad mutaysataa dallacaad, inaad mutaysatahay kuu diidee. sababtoo ah dallacaaddu waxay leedahay shuruuday leedahay. shuruudahaasi kow waxaa ka ah askariga inuu ku sifoowaa daacadnimo iyo disibiliin sarreeya, aadaab sare iyo daacadnimo inuu ku sifoowaa. tan labaad oo muhiimka u ah askariga waxaa waaye inuu leeyahay karti iyo firfircooni inuu leeyahay. macnaheeda waxaa waaye askarinimadu shayga la yidhaahdo daciifnimada wax boos ah ku malaa ciidannimada. tan kale oo iidana muhiimka ah waxaa waaye askarigu inuu leeyahay aqoon. aqoontaas oo ka dhigan aqoon ciidan. marka hore askariga waa inuu yaqaanaa waajibka saaran, uusan ka gudbin waajibkiisa, ka gaabinin. askariga waa inuu yaqaanaa xuquuqda uu leeyahay oo mid ka badan oo sadbursiya uusan raadin. markaas markii la helo waxaa ka baxaya meeshaasi daciifnimadii iyo qofkii inuu dib u noqdo oo gadaal dib u socodnimadii ka bixayso ah inuu amar diido, inuu waxyaabo liita ku dhaqmo. waxaasoo dhan ka bixaysa markii waxaas la helo. shuruudahan aan sheegayno iyo waxyaabaha aan ka hadlayno markii la helo, waxaan haysanaa askari aan ku aamini karno dadkeena, askari aan ku aamini karno bulshadeena, askari ay dadkeena ku dayanayaan markuu bannaanka aadaan haysanaa. askarigaasi oo markuu bannaanka aado lagu dayanaayo noocee waayo. askarinimadu ma ahan keliya, askarinimadu ma ahan in aqoontiisa inay ku ekaataa qofka ciidanka inuu gacanka amba isgaarsiinta oo warbixin wanaagsan madaxdiisa ka sii kara keliya ma aha. mana aha inuu kala sheegi karo maanta inay wax dhaceen iyo maanta inaysan wax dhicin, dhacda inaysan dhicin. xasiloonida iyo amni darada keliya inuu kala yaqaano askariga kama rabna, aqoontiisa halaas inay ku ekaato ma rabna. waxaan rabnaa ciidanka, waxaan ka rabnaa qofka ciidanka ah inuuna awood u leeyahay inuu bulshadan u adeegayo ka baajiyo, inay dhibka dhex dhaco inuu ka baajiyo. marka koowaad waxaan ka rabnaa qofka ciidanka ah inuu awood u leeyahay markii laba qatar u kulanto qatarta hooseysa inuu qaadan karo. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah askari meel taagan ah xabad lagu soo rido, tusaale ahaan cadow waa ku soo riday. hal xabad marka lagugu soo rido, markaad adigna farqabad ridaa oo baas ridaa oo bulshada adoo dhex taagan xabado ridaa oo kii cadowga ahaa iyo shan kala dhintaan ama qof kale dadkii shacabka ahaa meesha taagnaa ay dhintaan, askarigaasi ficil askari ma sameeynin. ma sameeye wixii looga baahnay ma sameeynin. sababtoo ah qatarta uu ka cararayo tu ka daran uu dhaliyo waay. macnaheed waa inay ka muuqdaa ficilka qofka ciidanka ficilkiisa inuu ka muuqdaa. waxaa la rabaa inuu ka muuqdaa turid oo shacabka u turaya inuu ka muuqdaa la rabaa. waxaa la rabaa qofka ciidanka inuu ficilkiisa ka muuqdaa adkaysi inuu ka muuqdaa waay. markay
dareema dhibaato yar uusan dhibaato ka weyn asaga gaarsiisanin waay dhibaatada ugu badan ama dembiga ugu badan ee dalkan ka dhaco maalmahan waxaa waaye israsaaseen dhex martay ciidamada dhexdooda waxaa lagu leeyahay subax walba markaad xafiiskaaga tagto oo warbixin subaxeedka lagu keeno waxaa la leeyahay dadaa dhintay askaraa isxabadaysay waxaa ku dhintay askar waxaa ku dhintoo kale shacabaa ku dhintay aadii arrintaas u foolxuntaa runtii wayna ka fog tahay ciidannimada waxaa laga yaabaa waxayna ka bilowdaan inta badan waxaa laba askari amba laba askari oo si aan habboonayn magaalada hub ugu dhex qaadatay ayaa waxaa ka hor yimideenaa lagu leeyahay ciidamadii amniga magaalada sugaayay way istaajiyeen waxay ku dhaheen ciidanka hubka dhiga way ka madax adeegeen maxaa la samaynaa waa markaas marka aan u baahannahay go'aanka fiican ee askariga uu qaadan lahay ma xabadoo ku furaa xabad moo ku dhufanaa oo asna xabad ku soo dhufanaa kaba daranle dadka shacabka ahay oo magaalada dhex taagnay ma ku dhammaanayo meeshoo dhibaato ka gaaraysa wiilkii mootada wada maa dhimanayo gabadhii ardayd aheed maa dhimanayso carruurtii maa dhimanayso odaygii waayeelka ahay maa dhimanayo muxuu qabto amniga qofka saas yeela muxuu qabto amniga ma asagaa dhibaato keenay wuxuu ka hortegaayey oo inuu la dagaalamo rabay inuu ka joojiin rabay iyo wuxuu geystiyaa badan arrinta markay saas taagan tahay ma aha in xabad lagu furaa askariga kale in xabad lagu furaa ma aha xataa haddii uu xabad ridaa ma aha kan kale oo amniga sugaayo amniga looga dambeeyey inuu ku jawaabaa xabadihii xabada ka badan halkaasna khasaaro badan ay ka dhalataa arrintu waxay suu murugo badan tahay magacii ciidanka dadkii loo watay oo lagu difaacayay oo lagu mataqaanaa loogu shaqaynayay inay dhibaato ku gaartaa meeshii markaasay aad usii filxuntaa arrintu qofka saas u dhaqmaayo oo markii hal xabad lagu rido baas ridaayo ficilka uu samaynaayo ma aha ficil ciidan ma aha wax xiriira shaqada ciidankaana lama laha ma aha ficil ay ka muuqato u turid shacab loo turaayo iyo adkaysi ficil uu ka muuqdo ma aha mana aha kaan doonayno askariga noocaasa ma aha kaan doonayno waxaan rabnaa oo aan rabaa marka ugu dambayso inaan aad u tilmaamo aragtida sharci ee noocaas ah magaalada waxaa ku dhintay dad fara badan oo la leeyahay waxay ku dhex dhinteen israsaaseen ciidamada dhex martay waxaan rabnaa ciidamada amniga kuwa magaalada amnigeeda sugaaya iyo kuwa kale ee xorooyinka ku jiro sida idinkoo kale ma jirto shaqada loo diray ka mid ma ahan in ay qof dilaan shaqada loo diray ka mid ma aha in qof la dilaa shaqada ciidanka amniga loo diray maba ku jirto meelay ka soo gasho ma leh waxay arrintu daran tahay markii qofka dhintaay oo haddana naqdaa qof shacaba oo qofkii loo adeegaya naqdaa way ka daran tahay arrintu waxaan hay-adaha baarista iyo oo kaashanaya xeelaanta ciidamada ku amraynaa in ay baaraan wixii israsaasayntii ay ku waxyeeloobeen dadka shacabka oo ka dhacay magaalada maalmihii la soo dhaafay soona caddeeyaan ciddii mas'uuliyadda laheyd oo mas'uuliyaddaasi qaadi lahayd ogaada dadkii shacabka ahay oo ku dhintay ciidamada dhexdooda dhiiggooda hadur ma aha waa laysku xisaabinayaa waana laysku haystaa ciddii mas'uuliyaddaas qaadda oo ay ku caddaatay inay ayaga xabado rideen ama ka gaabisay inay mataqaanaa ay ka joogsato waxyaabihii dhacay aana qaadayso mas'uuliyaddeeda waxaan rabnaa inaan ku ekeeyo sheekadayda hadalkayga maanta inaan ku ekeeyo halkan waxaan u nimid oo garsoorka ciidanka uu u yimid in uu idinkala taliyo wacyigelin uu sameeyo wacyigelintaasi way socod doontaa waxaa laga furi doonaa halkaani xafiisyo uu leeyahay garsoorku kaas oo loogu gol leeyahay in qofka dhibaatada ka dhex wada ciidanka looga saaro ciidanka qofka amar diidada samaynaya looga saaro qofka ku hadaaqaayo erayada oo aan mar hore aan ka gudubnay la rabana inaan ka gudubno oo qabyaaladda ay ku jirto in looga siibo ciidanka dhexdiisa nasiib daro waaye runtii qof aan ka sugayna maanta inuu amnigeena sugaa in shaqadiisa ciidanka laga eryaa ama xabsi la geeya nasiib daro weyn waaye aadaad u mahadsan tihiin waana wada joogi doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu